aad ayaan u nacabahay dumarka in wax loo geysto ama dumarka la dhibaateeyo. dumarku waa fiyooro, ha loo banaanbaxo calaamad gaduudan madaxa lagu wada xirto. waxay u fadhiisatay imtixaankii finaalka ee dugsiga sare, waxay ahayd gabar mustaqbal leh, anagoo ah farxadda meediya iyo shacabka daawadii ku xiran. please and please, xamdi maxamed faarax waa gabar masaakiin ah. run ahaantii cid ay wax ka galabsata ma jirto, cid ay dhib u geysata ma jirto. waa gabar yar ee mustaqbal leh. khaasatan waxaan tacsi gooni u soo dirayaa qoyskii ay ka baxday xamdi maxamed faarax oo loo geystay kufsi iyo dil foolxumo ah. door wanaagsan, galab wanaagsan, waqtiga idin tahay oo wanaagsan. halkani waa farxadda meediya. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad. aada iyo aada u mahadsan tahay. maantay farxadda meediya ma faraxsano. run ahaantii farxadda meediya maanta waxaan idiin wadaa barnaamij aada u murugo badan. farxadda meediya maadaama ay magaca farxadda wadato, maanta waxaa danta ku qasabtay inay ka hadasho arrin murugo leh. run ahaantii sidaan ognahay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay fal aada u foolxumo badan. gabar soomaaliyeed ee dhalinyaro ah ayaa la xoogay, dabadeedna dabaqa laga soo tuuray, meydkeediina laga helay dabaqa hoostiisa. run ahaantii waa ayaan xumo maalin kasta anagoo rag ah inaan dhagaheyna kusoo dhibicdo gabar ayaa la waxyeelay. run ahaantii ka aniga ahaan aada iyo aad ayaan u nacabahay dumarka in wax loo geysto ama dumarka la dhibaateeyo. dumarku waa fiyooro, waa ubax, ma ahan kuwa la dhibaateeyo. run ahaantii wiilow aada iyo aadaan uga xumay waxaad samaysay. khaasatan waxaan leeyahay dadka banaanbaxayo ee ku nool gobolkii banaadir ee waxaan ka dhacay, fadlan hadday suuragal idin tahay gabadhaas yaan arrinteeda laga aamusin. ha loo banaanbaxo calaamad gaduudan madaxa lagu wada xirto. aada iyo aada uga xumahay wixii ku dhacay xamdi maxamed faarax. waxaan u tacsiyinayaa qaas ahaan qoyskii ay ka dhalatay xamdi maxamed faarax. waxay ahayd gabar yar oo mustaqbal leh. sanad dugsiyeedkan 2020 waxay u fadhiisatay imtixaankii finaalka ee dugsiga sare, waxay ahayd gabar mustaqbal leh. run ahaantii nacas ama xayawaan aan waxba kala ogeyn oo bini aadan lagu tilmaami karin, oo xayawaanka waliba nooca xun lagu tilmaami karo ayaa gabadhaas dhibaato u geystay. talabaad waxaan baaq u dirayaa dowladda Soomaaliya. howlgallada ay sameysay sidaan ognahay waxay soo xirtay 11 qofood oo ku eedeysan dhibaateyntii la dhibaateeyey ama dilkii iyo kufsigii xamdi maxamed. aada iyo aada ugu mahadsan yihiin dowladda tilaabadaas ay qaaday, inkastoo laba ka mid ah damaanad lagu deeyey, laakiin damaanadii loogama harin. laamaha ammaanka iyo booliiska Soomaaliya oo iska kaashanaya ayaa weli ku daba jiro sidaan ognahay. waxaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed anigoo ah ama u hadlayo shacabka daawado farxadda meediya, anigoo u hadlayo xamdi maxamed faarax, in dowladda Soomaaliya ay xaqeeda usoo dhiciso sida ugu dhaqsiyaha badan. dilkii iyo kufsigii foolxumada badnaa ay u geysteen gabadhaas masaakiinta ah inay xaqeeda usoo dhiciyaan, weliba lagu cinqaabo dadka waxaa sameeyey dadweynaha hortooda ayaan codsanaynaa anagoo ah farxadda meediya iyo shacabka daawadii ku xiran. please and please, xamdi maxamed faarax waa gabar masaakiin ah. run ahaantii cid ay wax ka galabsata ma jirto, cid ay dhib u geysata ma jirto. waa gabar yar ee mustaqbal leh ee dooneysay inay nolosheeda guul ka gaarto. shacabka Soomaaliyeed waxaa taqaanaan laba maalin aad buuqbuuqaysaan kabacdi arrinta waa iska damaysaan. fadlan arrinta xamdi maxamed faarax ma aha mid laga aamusi karo. gabar yar ee ubax soo baxaya ah ee dugsiga sare sanadkan imtixaanka u fadhiisatay ee mustaqbal leh, raggii kufsaday ee dabadeedna dilay ma ahan kuwa laga aamusi karo. waa inay ciqaabtooda maraan. weliba tilaabadaas waxaa qaadi kara dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed. fadlan muuqaalkan si u gaaro qof kastoo Soomaali ah
wiil kastoo gabar la dhalatay, qof kastoo damiir leh fadlan sheergaray oo la wadaag. waa dhacdo murugo leh. soomaaliya dhacdooyin badan waa ka dhaceen. gabar baa la dilay, la kufsaday, saqiir baa la dilay, la kufsaday. sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka socda waxaa lama dhihi karo kufsi iyo dil, waa mashruuc, waa mashruuca la dhihi karaa. war waa gabar masaakiino, waa ay kufsadeen, dabadeedna way dileen. shacabka soomaaliyeed fadlan mar kale waxaan idinkugu soo celinayaa banaanbaxyada in la sii wado. kuwa ku nool gobolka banaadir, war calaamada cas waa in madaxa lagu xirtaa. waa xamdi maxamed faarax inay xaqeeda loo soo dhiciyaa. shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay gabadhaasi arinteeda aan meel dhow looga soo harin. fadlan xamdi maxamed faarax hala taageero. xaq darro ayaa lagu dilay, gacanka xaq daran ayaa dhibaateysay, xayawaan ayaa dhib u geystay. waxaan leeyahay xamdi maxamed faarax dhammaanteena ayay naga geeriyootay. dhammaanteena anigoo magaca soomaaliyeed ku hadlayo iyo dadka ku xiran farxadda media ayay naga baxday, ee qoys gooniyi kama bixin. dhibka ku dhacana waa dhib foolxumo ah. qof kastoo damiir leh ma rabo gabar la dhalatay in waxaas lagu sameeyo. xayawaanada falkan geysteen ayagaba gabar way la dhalato. aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa kuwaas yaa waxba xabsiga lagu hayn haddii dembiga ku wada caddaado dabaqii ay kasoo tuureen la geeyey laga soo wada tuuray ciqaabtooda laga dhigaan qaba aniga. asxaab male waa arxanlaabayaal. bal waxay sameeyeen bal fiiri. ma rabo dembigii iyo foolxumadii ay geysteen oo ay u geysteen xamdi maxamed faarax inaan sawirkeed inta soo saaro, inaan gabadha sawir gabar dhibaateysan oo la dhibaateeyey maanta allah u naxariistee naga hooseyso oo ilaahay oofsaday, inaan maanta sawiradeedii aan youtube-keeda soo dhiga diyaar uma ah. laakiin waxaan rabaa farxadda mediaka ahaan sidaan uga xumahay dhibaatada loo geystay xamdi maxamed faarax inaan la wadaaga shacabka soomaaliyeed. shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa haddii laga aamuso arinta ku dhacday xamdi maxamed faarax ee la kufsaday ee dabaqa laga soo tuuray, gabar kastee soomaaliyeedna saas ayaa ku dhici doonta. fadlan kacoo istaaga oo dowladda garab siiya oo ku bushgareeya gabadhaas xaqeeda in loo soo dhiciyo. weliba waxaan codsanaynaa shacabka soomaaliyeed intii daawata farxadda media ama shacabka soomaaliyeed dhanba waxaa codsanaynaa dadkaasi in lagu ciqaabo shacabka soomaaliyeed hortooda. nabar ayay noo geysteen, dhibaato ayay noo geysteen. waxaan ku tilmaama ma aqaan. waayahay aada iyo aada umahadsan tihiin farxadda media asxaabta ku xiran. waxaan tacsi u dirayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel walbay joogaan. khaasatan waxaan tacsi gooni usoo dirayaa qoyskii ay ka baxday xamdi maxamed faarax oo loo geystay kufsi iyo dil foolxumo ah. waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteena way nala dhalatay, waana ka xunnaa wixii ku dhacay. intaas ayaan kusoo gebgeminaynaa barnaamijka. aada iyo aada umahadsan tihiin. maalintu ha idiin wacnaato. farxadda meediana maanta ma faraxsan.